maadaama siyaasi Kenya Soomaalina aad tahay wadanka Soomaaliya doorashadii la isugu mari laayahay 4 sano kastana waxa heshiiska lagu ahaa in doorasho la aado rajada dadkii colaad iyo dhiila iyo dareen waxbay muujinayaan maxay kula muuqataa qaabka doorashada u socoto madaxweyne markuu xilka hadda مثلا Uhuru baa ka tagay xilka maanta xilka Uhuru maanta uu ka taga madaxweynaha haduu la wareegay wuxuu dhameystirayaa muddadii u dhineed madaxleedkiisa marka ka dambe waa in doorasho hadana lagu ambaqaado laakiin midii Sheekh Shariif dhaxdan uu ka soo galay muddada oo kaamilna uu qaatay waxna uu korsaday فهمت انت عبد الله كدنيد كلمه اوسن دمeystirin 4 sano kaamil buu qaatay hadana waa kii muddo oo yar kortay waxa keenay waxa soo dhanbo dimuqraasiyada oo iska maxay ahayd iska yar oo maartay dalandeelis oo wali maartay aan si oo in amba qaadan oo gurgurasho iyo maxay ahayd ku jirto iyo talaabado la isla gafo wadankii oo ka soo baxay xaalada aad u culus oo adag حسن شيخنا مدير باي رافتي يدهت تن marka waxay kaga duwantaan ku sheey tan waxay kaga duwantahay hal qof iyo hal cod biiri iyo bilaabay mar hore asaga maamul goboleed waxay dhaheen ma dhacayso waa laga hor imaaday laguma tilaabay qaadi karaa leeyir beesha caalamka hadda Soomaalida ay aad afka ugu haysana oo anigu runtii wax weyn oo arkin oo dadka ciladii caqabada Soomaaliya oo dhan eegayeen waxay dhaheen wax loo idil yahay wax loo idil yahay baa dhici karaa mid kororsi ma jiro maya one man one vote oo adiga aad rabtay haday gobolada maamul goboleedyada ay raali ka ahayn oo diyaar u ahayn wixii ay iyaga diyaar u yihiin oo kala xisaabtan oo wax loo idil yahay systemka loo idil yahay marka one man one vote ka sida uu la isku daba jiitamahay iyo horta dhaxda ka baxay marka ugu dambeysay gabadhii Xalim Yareyna muddo yar in ay ku korsato oo xilligan bal arkay ay dhameystiri lahayd yay diyaar u ahayd oo wixii la diiwaan geliyo si degdeg ah aanka waa laga diiday tirooyinka la isku qabtay way fara badnaayeen dad baa ilaa 1500 yiri oo qof ha codayaan adi marka dambe 300 baa iyo hadana ay ku soo dhamaatay oo 3 maamul goboleed ay ku dhameeyay 300 hal meed ay ku soo dhameysteen laakiin labadii maamul goboleed baa waxay hadana yeeli mayno 100 hal mar golnahay way hay baa leeyahay hadana caqabad bay ka keeneen marka jiitankaasaytu anigu way noo cadeed runtii jiitankaas ku talagalkeeda waxay ahayd hadda maato waqtiga tan ma yeelina gadaal dib noogu dhiga marka la isku imaanaya wixii la guriyay oo dhanbo oo ay Puntland iyo Jubaland iyo maxay ahayd ay diidayeen midowga maxay ahayd musharaxiintan ay garab u ahayeen waxay ahayd inta badana iyo colaadadii la soo qaadahay oo gadal laga soo geliyo xabada lagu firahay intii Kenya la garabsado waxay ahayd baadina baa kula diiday daalna ka badan waan doonahay in la heshiiyo abadkay waxay ahayd waxa la iska dhigayay wax doonayaan in doorasho la qabto laakiin hal wax isku afgartay laakiin markii la isku afgartay hadana tukala ka bilaw hadana suuqan ku soo dhamay horta tukala ka bilaw muhiimadda waxay ahayd iyaga ay wateen anigu ay cadad markii ahayd laakiin inay meel ku gaareen ay iska cadad in ay waqtigi dhamaato 4 sano ay dhamaato la yiraahdo waqtigaadu uu dhamaaday wax go'aan oo gaari karta malaha nidaamku meel gaar ah oo annagana aan ka dhex muuqano hal la hagaajiyo nidaamka ku meel gaarka marka doorashada sameeyo laakiin waxay hilmaameen isla sharciga asaga baarlamaanka asaga ayaa wuxuu baas mareeyay in baarlamaanka muddadiisa ay dhamaanaysa markuu baarlamaanka la dhaariyo biisana ku sheegay madaxweynaha ay muddadiisa dhamaanaysa markii ay madaxweynimo uu xilka ka degayo oo ka gudbayo markii madaxweyne kala la dhaariyo